haddaan urur haween jirin dalka horumarkiisiyo nabad lama haleelin lama huraankii weeyo halbowlihii bulshada بسم الله الرحمن الرحيم marwooyinka ka soo qayb galay iyo gabdhaha sharaf ayaad mudantihiin afurka sharafta leh oo loo maanta loo bandhigay oo loo soo banaan baxay Batuule Axmed Gaballe eedaday Batuulo walaashay aaday aniga horta qaali igu tahay mentorkayga waaye wax badan ayay ka bedeshay dabeecadaha aan aniga dhaqanka u leeyahay saasaana loo baahan yahay qofka inuu qofka wuxuu taro uu admid garay creditkiisa inuu siiyo waxbaa la kala bartaa skillka iyo daanimaana lahayn special dumarka skillkooda tamboy iska ahaan jiray laakiin hadda waxaan leeyahay waa mahadsantiin kulligiin mar kale iyo mar kale waxaan microphone si degdeg ugu wareejinayaa aniga waa la qibaalkan hadda ka hore habaryartay Saara Xaaji Xasan horta xafladda aad bay u qurux badan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim misir baa la isu soo ayaa soo soocay dadkan waxaan ku leeyahay ma sha Allah wallaahi billahi dad badan oo xataa waa hore aragooda igu dambeysay baa xarada ku jira waan u hambalyeynaya qofkii soo wacay dadkan soo socday marka in kale oo hadda ka badan nabarada waa maqan yihiin laakiin meel la isugu wada imaan karo ilaahay subxaanahu wa ta'aala horta bil Ramadaan baa lagu jiray maghfira Allah ina ka siiyo afurkaano afurayno waxa kale oo dacaamo shifal Allah nooga dhigo dadkina afuriyay oo isugu yeerayna waxaan ku leeyahay ilaahay jisadiisa jannaha ka dhigo gabadha la isugu yimid oo waxaan ku leeyahay hawsheeda caawa meesha lagu sagooteeyo Batuulo Sheekh Axmed Gaballe ما شاء الله مقع لقى مسكين نابين نكي يقاني با يقيني نكي يقيني با يقانه بحا وي وحا كومغان وح معانه او معدنها با كومغان او عاقبها كومغان marka
alxamdulilah rabbilcaalamiin batuulay waa naga tegaysaa waana noo timid khaas ahaan anigu aad iyo aad baan waxaan ku leeyahay waxaan kuugu celinayaa mahad weyn oo walaalnimo ah oo eedanimo ah oo aayanimo ah oo inadeernimo ah oo soomaalinimo ah oo islaamnimo ah iyo lama koobi karo intaasoo dhan way sunnahay maxaan ku dubaashadii baan ka tagaa iigu daray dubaashinimo laban laab ah alxamdulilah rabbilcaalamiin batuula meesha iiga soo kacday oo nagu dirsaday anaga aroos baan qabay maalinta meesha iiga timid waa meel aan mataqaana aan laga soo kici karin oo waxaan ku leeyahay aad iyo aad iyo aad culays loo saaray bay ka timid oo iiga soo kacday oo mataqaana igu qadarisay inay codsigayga ay aqbasho batuule aqbalkeed aqbashay oo ii timid hawsha aan kuugu yeertay in aad ii qabatay waxaan ku leeyahay eeda jisaakumullah khayr ilaahay subxaanahu watacaala adigana waxaan kuugu ducaynayaa meeshii kodari kaa haysata allaha kaa fujiyo waxaan ku leeyahay waxaad tahay gabar fiican waxaad tahay hormood baad tahay waxaad tahay soomaali baad tahay waxaad tahay mukhlis baad tahay waxaad tahay mataqaano qof sama jeclo ah waxaad tahay qof walba ka dhiidhiya yacni dhibaatadana haysata oo meel walba taalla eedo waxaan ku leeyahay dadku haddii inta dhowr adigoo kalea laga wada heli lahaa oo waa ka buuxaane wayna sidaadoo kale isu muujin karin maxaan ku idhaahdaa yani horumar weyn baa la gaari lahaa oo ama soomaalinimo lagu gaari lahaa ama gabdhuhuba gaari lahaayeen marka waxaa weeye gabdhahana alxamdulilah rabbilcaalamiin gabdhuhu waa ku jecel yihiin mid baqan iyo mid joogtaba waa ku jecel yihiin eedda waxaan ku leeyahay meesha adaadaysana nabad allaha kugu gaarsiiyo hawshii aad gacanta ku haysana ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu kugu garab galaa annagoo dhan baad noo haysaaye adigu ma haysatid bugdi baanu kaga jiraayo waxaan ku leeyahay gabaygaan kuu sheegay muxuu ahaa batu hindisahaaga iyo batuulay habkii wacnaa haddaan hooyooyin hadafkoodu soconahayn horumarkii duwar maxaa saaray heerya culus hirtaan iyo ciil hadday meel la hooganayaan oo hagarta iyo dhibaha weligood ku hoos jiraan ama ku hoos jireen weligood bay ku hoos jireen hagarta iyo dhibaha weligood ku hoos jiraan hantida guri bay lahaayeen yaraha la yiraahdo hadba meel laga qabsanayo hantida gurigay lahaayeen dad hooshayaan had bay hambaraarugayaan haweenkanagu oo heshiiska midnimada hamigooda galahaya himiladooda iyo aqoontooda heer ku tegi dumarka aad u hiilinayso ku howlan tahay taladu ka habowsan tahay oon hoggaanka rabin hankoodii weli yaryahay oo habeen ku jira hankoodii weli yaryahay oo habeen ku jira dantaadii uga huleeshood nafta u hurtiri haddii hadalgalaya hawadaan u marinhayaa ee maxaa ka hor jooga khayrkood halkuu higsaday soo dhaweyn loo soo dhaweynaya buraanbur xoogaaba magaciisa jilicsan baa loo tiriyay mid baa intaa soo tiriyo waxaan inaan ku xambaara xakamaan isagay hadda inaan ku xambaara batuulay xakamaan isaga haya eedo waxaan ku leeyahay cirka kuma gaarsiin karo dhulkana kaama qaadi karo saan kuu gallana ma naqaan laakiin ducaan ku huwinayna ilaahay idankiisa ducaan ku huwinayna meesha tagta malaa'igu waa kula maraan sharkiyo shaydaanka allaha kaa xijaabo waxaa dalbaysano ilaahay si fudud mataqaanaa dadka qalbigooda allaha geliyo midnimada iyo wadajirka iyo walaalnimada iyo soomaalinimada iyo mataqaana hawshu aynu haysanay midda aynu rabnay inaynu ku darsanay ilaahay raggana allaha noo jilciyo oo waxaan ku leeyahay allaha tuso inaynu leenahay u baahannahay gacan qabasho u baahannahay marka waxaan ku leeyahay la'aantoodna ma noolaan karo hadee iyaga waxa lagu dhaqan yahay oo harsanayna waxaan ku leeyahay nafna naguma jirto waxaan ku leeyahay wax weyn nooma quuraano kow way nooga siiyeen bismillaahi raxmaani raxiim inteenaan meesha isugu nimid aada iyo aada waxaan ugu faraxsannahay batuuloo naga baxaysa beri inaynu isugu nimaadno inaynu ku faraxno inaynu sii saagootinno waa aan kusoo talagallay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin batuulo waa halbowlaha mujtamaca toronto
lama heli karo waa qof soo halgantay waa qof codkara waa qof aqoon-yahana waa qof ka soo bixi karta mujtamaceeda wixii loogu daro haddaynu reer Toronto nahayna waynu naqaanaa Batuulo iskama ammaanayno laakiin waa qof yacni u qalanta magaalada Toronto tegidda ay nooga tagtay waxaanu nahay meel bannaan baan joognaa wixii loogu tagana lagama waayo waa kaasoo hadda markii aanu u baahanay yarkayagii eedda dhashay inaan aroosino yacni meel fog ayaanu uga dirsanay inay noo timaado iyagoo gabdhuhu wada codka yaqaana iyagoo gabdhuhu wada taagan haddana Batuulaanu dalbanay sababtoo ah waxa waaye waa noo hagar baxday arooskii tay ka dhigtay mid laga hadli karo maaha waa u ducaynaynaa walaashayo waay marna eedaan u nahay dhinac walba waa isaga nahay waxaasoo dhana waxaa ka muhiimsan reer Toronto inaan isla nahay reer Toronto horta dadka degan ama jooga aan ku bartay 19kii markaanu soo galay qof la heli karo maaha Toronto waa yacni halbowlaha mujtamaca ayay ka mid yihiin gabdhaha reer Toronto jooga waa naaga akhlaaq leh waa shaqaysanayaan ilmihii iyo waxoodii bay wada haystaan mujtamaca iyaga maanta Toronto halbowlaha mujtamaca waxaa noo ah gabdhaha iyaga waanu ku faraxsanahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kulligood awlaada iyo aqoontooda iyo gurigooda in ilaahay ku adkeeyo waanu ku faraxsanahay Batuulo maanta inay naga tagayso ilaahay waxaan ka rajaynaynaa iyadoo nabada inay noo soo noqoto Assalaamu calaykum horta aad aan faraxsanahay labadoo isku shaandheynaya assalaamu calaykum horta aad aan u mahadsantihiin aniga eedo Batuulo Axmed Gaballe runtii magaalada waxay ka tagtay marka aniga magaalada kow soo galay aan community iyo Soomaalida soo dhex galay laakiin habri Sucaad she speaks very highly of her waxa waaye taariikhdeeda waxa ay isla mareen markasta waxay igu tiraahdaa Nawaal adiga groupka iga yar tahay aniga groupki isoo gacan qabtay oo isoo toosiyay oo garabka ii ahaa oo ii hiiliyay runtii waxay markasta ka sheegataa eedo Batuulo Axmed Gaballe marka eedo Batuulo wixii ay ka tagtay ee habari Sucaad uga tagtay ba anagana naloo sii gudbiyay so hopefully anigana waa marka taariikhda eedo Batuulo waxa way taariikh aad u dheer waaye waxa waaye qof aan aad u qiimeeyo waaye lana socday dhaqdhaqaaqeeda Soomaaliya somebody that I look up to and respect badan u haayo marka insha Allah waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay idmo inaan Soomaaliya ugu tago waa u sheegay waan ku imaanayaa aan ku eri anigana this is my mentor habari Sucaad Maxamed Caymad habari saaxiibaan ugu yeeraa iyadii oo habari Muna Salaad Gabeere aadaan u jeclahay marka aadaan ugu faraxsanahay caawa inaan apart noqdo dad badan oo qiimo badan oo community-ga oo ah foundation oo ah caawa meeshaan isugu yimaaday oo ehel asxaab walaal aadaan ugu faraxsanahay caawa inaan eedo ka qayb galo programkaaga insha Allah ilaahay waxaan ka baryay waxa jecesho dhan inuu ku easy kaaga dhigo ilaahay waxaan ka baryay inta xun iyo xaasidka sanadka like lately waxa waaye adduunka wuxuu iska noqday very tough critical waxa lagu jiraa waqti lagu jiraa kaliya ma ahan inay dadkii ay dhibaatooyin dhex yaalaan adduunkii oo dhanaba dhibaato badan iska taala marka waxa waaye eedo ilaahay ku fududeeyo ilaahay garabkaaga ha galo ilaahay waxa jeceshahay ku sahlo eedo macaan annagana waa ku xiiseynaa you mean a lot to us here in Toronto kaliya ma hooyooyinka kaliya ma aha waxa waaye legacy aan nooga tagtay insha Allah taala waxa waaye Soomaaliya aan kugu imaan doona annaga iyo madaxweynaha cusub oo Jubbaland madaxweynaha cusub Jubbaland marka waxa waaye eedo Batuulo Axmed Gaballe hadda markay noo timaaday arrinay noo keentay waxay tiri gabdhow waxa la idinka baahan yahay inaad dhexda xiratiin kaliya tama aha jagooyinka waxa waaye hadda jagooyin badan jiro ragay la leecleecayaan and women kana opportunity ana loo siin wali inay galaan marka hami badan iyo courage badan ay galis hadda marka anaga madaxweynaan soo wadanaa haduu Ilaahay idmo marka thank you very much aadana u mahadsantihiin kulligeen say inii sheegtay
dadka waa inaad admiid garaysaa qofka wuxuu kugu yahay isuu kugu weyn yahay alaabtii 01 ma geli karno tayd waa sheekadaas hadda waxaa jira dad meesha fadhiyo oo saad u ogtiin waa lagu kala kaliyabarsan yahay geedkan suuban cabdulaahi faytaan reer toron inay ogaadaan waaye caadi ma aha sheekadaada suuban anaga horta reer torontaanahay reer toronto alxamdulilah rabbi caalamiin sida ogtihiin gabdhaha wax badan ay haayaan dantaan ku qasabtay qof calooshiis banaanka taallo ma fadhiisan karo hooyana waa hooyo kasta caloosheeda banaanka taallo caruurtiyaa taallo mar ay aroos rabaan mar ay goris rabaan be mother is not easy weliba reer galbeed mother ku noqo is another wax oo easy ahayn marka waxaa aniga waxaan kala qaybiyay 4 caruurteen 4 successful kuwa u baahan kaalmo kuwa natural naga jirnaa jiro iyo kuwa jeelka nooga jiro 4 marka 3 guruba help u baahan midkan successful ka noqdo daniis oo ka raacday haduu asxaan ku sameey marmar oo kulay happy mother day ila fasaxi bish waxa laga siinaa meesha shaqada looga sheegaa mugta laakiin 3 noo baahan waxa waaye midka u baahan in aqoontiisa la dhiso drop out anaga dhahnaa he's not drop out anaga ka dhigna drop cunug kasta aqliga ku dhashay capability ku dhashay waxbuu yaqaanaa batuulo dhaqankeeda waa soo jireen ambition waa ani batuulo waxa ku dhacay xamarad ay ugu dhici lahaayeen mar hore aan soo noqon lahay xaabi geliyo murug iyo wareer iyo jawreer laakiin ayadu waxay u joogtaa xawaaye she is ambitious waxay jeceshahay waa inay hooyooyinkaas isku aruurisay keenta ee rabtaa ee wado hooyadii dhiban wado magaciisa wado isku dubrito ani gabar yar aan geysto waxaan gabadha aniga in madashaa saasay gacanta ugu haysaa ana waan u diyaarsan tahay sanis war hooyo la baabina ma aragteen haddii wasaaradda la sameeyay dhalinyarada haddii la sameeyay wasaaradda hooyooyinka war wasaaradda habraha xataa sameey laakiin hooyo iyo hoggaan hooyo ma la baabi'i karo has to be there waa in representative noqdaa batuulo way ka bixi kartaa waan ku taageerayna anaga haddaan reer Toronto nahay waa sida hore u sheegeen eedayaal anaga dhanaan sheegayna hadda waxay gaaraysaa batuulo inay beebiyaasha magaceeda sheegaano maxaa lagu samaynayaa generation to generation lagu haysto ya sanadka weliba gabadhii dhalatay batuulo bixi doona umaleyn anagoo tusayna magaalada wada batuulaysan tahay marka walaashay batuulo waa taageeraynaa reer muqdisho kale universalka muqdisho laga arkay mayno reer muqdisho waxa u sheegaynaa batuulo horta noo dhaafaano arag wax kale ma karabna ya mar dambe ya maqlin batuulo la lagu leeyahay yahay iyo batuulo qof la tartamooya iyo alaabtii batuulo lagu soo jura iyo reer muqdisho batuulo amaan noo siiya haddii kale nin kastoo Toronto imaado ama xildhibaan ama wax warba aado halkaan waa kaaga tagaynaa soo dhaways waa dhamaaday marka batuulo ku xiran tihiin inta xamar jirto noo daaya batuulo marka anaga intaas aan ku dardaarminaynaa garabkeeda walaashii Allah galo safar waa loo duceeyo waa wada duceysan doonaa bil Ramadaan waa insha Allah Ilaahay wax ku dhibo kuma tusi doono marka waa wada duceysanaynaa aan soo duceeyno caruurteennana Ilaahay subhanahu wa ta'ala nala qabto aad u wanaagsan yihiin caruurtii noo joogto laantood ma ha karno caruur waa gacal waa wixii bedel lahay waa generation bedel lahay waxaan horta dadka xamaran salaameynaa qof walba duu yiri xamaran ku dhashaan hooyadii isku run ku dhalatay marka horta xamar iyo Soomaali waxay noqotay ilaa caafimaad iyo cimri dheer ha nagu geeyo habarin waxaan uga baryaynaa cimri dheer iyo caafimaad intaas lay ku darsanaa wax kale sheega male waxaan idin sheegayaa in la isjeclaado oo qabiilka laga baxo aniga left and right aan ka imaaday I'm in the middle sometimes I go left and right laakiin sucaadi aniga hadda israacayno marka insha Allah xamara ka wada degaynaa still madid for since the last 30 years I haven't been so we're going to go back me and her yeah insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halka waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan gabdhaha soo qaban qaabiyay programka aan ku soo gootinayno eedadeen macaan Batuulo Axmed Shegaballe marka waa ugu faraxsanahay wajiyaal isxasuusto marka isxasuusta laba ay kala
كلواي دبطول رنتي حمر أنت أنا توتا سنتو ألف ما لقى هالذكر يدري أنا يرنا أجرو أب شنومي my family and her family يدري صاحبي هايم يدري مري مرة كل وكوس أقليستي ساس إتهاي هل هبي أنا وجوجنا نسور هذه السنة marka eedo waxaan jeclaanayaa in ilaahay ku karab galo ina waxa jecesha ilaahay ku sahlo anagana reer Toronto welcome eedo macaaniya dhamaan eedooyinka Zaara Xaaji Xasan eedo asli idinka baad salaamay aniga sidaa ogtiin ba I born and raised ceel hindi naag reer Muqdisho ahaan ahay ani Muqdisho xudunteeda ku duugan dhaxankeyga ku duugan dadkeyga jooga Soomaalidu habeen xana waxaan ka dhaxlay hadal ah wiil meesha ka qudbeeya wuxuu yiri is afgaran waaga aad ugu batay warkiib dhawaal soo koobay is afgaran waaga aad noogu batay waxa dastuurkeena dumay dastuurku is afgarad haduu dumay way dhib badan tahay horta ilaahay waxaan uga baryaynaa Soomaalidu inay dhaqanka dastuurka iyo ruulka iyo runta raacdo ummad aan kaas lahayn muslim ma noqoto ummad aan runta sheegin muslim ma noqoto muslim oo run sheeg muslim oo ka qaadaa la yiri fariinteedu waxay tahay haweenka Soomaaliyeed ee ku socotaa iyo ragga wax garadka ah dhalinyarada maaragtay dadka deegaanka degan odayaasha dhaqameedka batuulo ina aragtaan waaye bilowdaana credit-ka iyo halganka ay dhulka iyo dadka u soo martay maalintay bixayso waa la dardaarmay eedo xoogaa cabsi waayaa eri waaga Cabdullaahi Yuusuf eeyd waxay tiri macna male eedo cabsida waa laga talaabsanaa wali way nooshahay anaa la ileeyahay wax la dilay ma jirto qof kasta waqtigiisu dhintaa eedo batuulo waqtigeeday dhimanay laakiin waxay ku dhimanaysaa oo lagu la dhimanayaa in la helo gabdhaha Soomaaliyeed 30% inay helaan codkooda madaxweynaha prime ministerka dadka hoggaanka haayo reer Toronto waa soo socdaan hadda wadamadan wax ka soo dhacsadeen waa ogta xaq umada hayaan waa in galnay waxaana nasiya haddana waxaan hadal ku wareejinaa Batuulo Axmed Gaballe oo noo sheegi doonto oo nooga taataaban doonto arrimaha ka jiro iyo arrimaha ay iyada wadato iyo wax projectkeeda بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo kun iyo kow joor aan idinkaga mahad celiyo sidii wanaagsanayd oo runtii aanan iloobi kareynin oo aad ii soo dhaweyseen oo aad ii garab istaagteen oo aad ii taageerteen oo aad iigu ammaanteen wax aanan istaahilin waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo oo aan runtii idiin sheego inay ii tahay boost noloshayda waxaan ku jirnay halgankaas inay ii tahay maaragtay taageeradaas iyo garab istaagaas iyo kulankan iyo koolkoolintiina oo aan ahayn caawa iyo habeenkii hore oo keli ah habeen kasta oo aan Toronto joogay waxaan la kulmaayay qayb gabdhaha ka mid ah habeen kasta waxaan ku jira casuumaad habeen kasta waxaan ku jira shir habeen kasta waxaan ku jira wada hadal taa waxay ii muujinaysaa sida ay idinkaga go'an tahay in aad u gudataan waajibka idinka saaran dalkiina iyo dadkiina iyo gaar ahaan deegaanka adduunka aad uga nooshihiin ee dalka Canada mataqaana magaalada Toronto runtii waxaan inta aan idinla joogay inta aan idinka maqnaay warka waa kala helaynay laakiin inta hadda aan idinla soo noqday waxaan la kulmay warbixino badan oo ka duwan tii hore ka duwan sababtoo ah meel kasta oo Soomaalidu ay ku nooshahay waxay qabtaa dhibaatadaasna kama bixi karayso ilaa ay qarankeeda dhisato markay qarankeeda dhisato calankeedu mataqaana uu adduunka ka lusho safaaradaha adduunka oo dhan aan maaragtay meelo dawladaha adduunka aan safaarad ku yeelano calanka Soomaaliya uu noqdo calanka waagii mataqaana Ingiriiska waxa la dhihi jiray calanka Ingiriiska qoraxdu kama dhacdo sababtoo ah adduunka oo dhan uu ka taagnaan jiray Soomaaliya marka inay noqoto meel walba inay safaarad ku yeelato oo adduunka oo dhan ay ku yeelato xaquuq waayo adduunka oo dhan aan degnay shanta qaaradood oo adduunka ayaan ka tirsannahay sida awgeed inaan is empower gareyno oo aan dawladnimada dhisno oo aan safaarada yeelano oo waliba safaaradahaas ay gabdha metelaan
sababtoo ah ayaga ayaa garan kara baahida ay qabto bulshada Soomaaliyeed adduunka joogta iyo baahida ay qabto ummadda Soomaaliyeed ee gudaha ku jirta. waxaan ku faraxsanahay gabdhihiinan caawa halkan maarata afurka noogu sameeyey kulligiin waxaad tihiin graduate mataqaanaa Soomaaliya waxaad ka soo wada baxdeen jaamacadihii Soomaaliyeed wax ku soo barateen laga bilaabo dugsi hoose ilaa jaamacad gabdho ka soo qalin jabiyey dabadeed markaad adduunka timaadeen dalkan gaar ahaan Canada aad timaadeen waxbarashadiinii hore u sii wadateen maanta halkan waxaa fadhiya intaasoo gabdhood oo macallimiin ah intaasoo gabdhood oo injineer ah intaasoo gabdhood oo political science bartay intaasoo gabdhood oo bartay IT-ga intaasoo gabdhood oo social worker ah intaasoo gabdhood oo maxaan ku radaa internationalka nursing ah oo caafimaadka maaragtay ee bartay intiina waxaad tihiin elite-kii iyo maskaxdii iyo kareemkii gabdhaha jooga magaalada Toronto waxay ku tusinaysaa marka waxaan ogahay inaad daalan tihiin oo aad maskaxaana u daalan tihiin physically mataqaanaa aad daalan tihiin saakay waxaa laga yaabaa guriga inaad ka baxdeen 6 o'clock oo 5 o'clock in the morning inaad ka baxdeen inaad shaqo gasheen oo waliba laga yaabo qaarkood waxay shaqeeyaan 3 shifti 4 shifti ayay shaqeeyaan gabdhaha iyaga oo daboolaya ma aha kaliya inay maaragtay baahidooda daboolayaan waxay daboolayaan baahida dadkoodii dibadda mataqaanaa ay ka soo aadeen oo gudaha ku jiray Soomaaliya iyo caruurtii iyo mustaqbalkii iyo magaalada aad joogto laftigeeda iska celisay ka rabtaa adduunyadu maanta technology ay noqotay wax la soo qaban kara ma ah waxay u baahan tahay marka iskaashi iyo wax wada qabsi ay u baahan tahay waxaan aad ugu faraxsanahay marka kartidiina iyo daalaantiina sababtoo ah dareenkiina ayaa idin gaarsiiyay inaydan daalin waxa laga yaabaa qaarkood inay haddana arrimo kale oo bulsho ay u soo jeedaan habeenkii oo ay saacado dambe ku gaaraan subaxina ku shaqo tagaan iyagoo soo jeeda dadaalkaas marka wuxuu keenayaa miro fiican u keenayaa habeenkii ugu horeeyay oo aan isu aragnay oo kulankii ugu horeeyay aan samaysanay waxaan isla soo qaadnay in loo baahan yahay in haweenku ay midoobaan oo ay ku midoobaan mabaadiida Soomaalinimada mabaadiida Canadiannimada mabaadiida hooyanimada mabaadiida wax wada qabsiga oo la rabo adduunkan inta aan ku noolnahay inaan wax uga tagno annaga waa ka tagaynaa nawaal iyo gurubadaas maaragtay na dhaxli doona hadii ilaahay raali ka noqdo laakiin maxay naga dhaxlaayaan haday isnacayb nagu arkaan waa naga dhaxlaayaan haday isqoqob iyo qabiil nagu arkaan waa naga dhaxlaayaan haday dad aan wax istaraynin oo aan isjeclayn arkaan waa naga dhaxlaayaan iyaguna saasay ku dhamaan doonaan laakiin maalinta ay arkaan sida aan maanta nahay iyagana waxay u tahay ku dayasho wanaagsan ay u tahay tilmaamay u tahay hirashay u tahay maanta habaryar cid aan garanayna ma jirto habaryar waa gabadha Soomaalida Canada joogta kulli habaryar aan wadana kulligan ciyaalka habaryar aan wadana kulligan waa wada dhalnay kulligan waa wada ooynaa markay dhibaato ku dhacdo ilmaheena kulligan waa isu gurmanaa markii ilaaha ma hadda iskale ay wax nala soo darsaan taasa la rabaa marka inaan u samaysano macna u samaysano waayo halgankaas faraha badan oo aan ku jirno waa halganka u horseedaya ilmaheena inay ka baxaan dhibaatada waxaan noqonay hooyaan noqonay aabbaan noqonay qaranaan noqonay dawladaan noqonay waxaan noqonay abtiyaan noqonay adeeraan noqonay awoowaan noqonay wax kasta ayaan noqonay haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed dibadda ilmaha ku korsaday cunuga dibadda lagu koriyo wuxuu qabaa magtiisii uu qabaa adigana magtaadii uu qabaa waana xaqiiqo taas gabdhaha Soomaaliyeed marka waxay soo saareen injineeray soo saareen looyaray soo saareen neersinay soo saareen dhaqaatiiray soo saareen waxay soo saareen ciidamada qalab mataqaanaa ii sheega booliska iyo ciidamada kale ee dibadda mataqaanaa ee wadankan ay soo saareen waxay soo saareen who is who ayay soo saareen waxay ku soo saareen awoodooda aqoontooda kartidooda iyo dhaqaalahooda ku soo saareen dadkii naga horeeyay ilaa dhowr generation maanta Soomaaliya meesha ay gaartay ma aysan gaarin waa ogtiin dalkan Canada 10 years ayay marka Soomaalidu mataqaanaa tirsataa inkastoo dad badan oo ka soo horeeyay oo iskood reerkooda u soo dirsadeen oo waxbarasho loo soo diray ay jiraan laakiin markii jabku nagu dhacay ayaa dibadda loo batay oo la soo qaxay markii halkan la yimiday markii 10 years laga bilaabo 90 from now hadii la sheego ma jiro qaarad adduunka meel kasta cid ka timiday oo qaxooti ku noqotay Canada oo baarlamaanka gashay oo wasiir ka noqotay oo ka shaqaysaa ma jirto oo aan Soomaali ahayn sidoo kale Mareykanka ma jiro 10 years gabar ka yar
oo mataqaanaa iisha gashay kongareska maraykanka oo aan soomaali ahayn ma jirto taa waxay ku tusinaysaa jiinka aad u mahadsantihiin jiinka soomaalidu ay leedahay waa ka duwan yahay jiinka adduunka oo dhan waa ka duwan yahay kuwa nala qaaradda degan oo aan afrika kula dhalnay waa ka duwanna wax la qarinaayo maaha adduunka oo dhan laga ogyahay soomaalida waxaa la dhihi jiray Irish of Africa waxay ahayd Irishka Africa ahayd Soomaaliya qurux hadday noqoto aqoon hadday noqoto dadnimo hadday noqoto caqli hadday noqoto gumaysiga markuu gumaysanaya qaaradda Afrika meeshii ugu horeysay Afrika oo dhan gacmahay raaracsatay laakiin anagu markii aan la dagaalanay diyaarado noo soo kiciyay waxa keenay jiiniska Soomaalida keenay waa ka caqli badannahay waa ka dareen badannahay waa iskala weynahay waxaan nahay mataqaanaa ummad qiimo badan ku leh jiritaan ahaan iyo qaarad ahaan intaba ku lahaana qolo kasta dadkan hadda carabta ah ee mararka qaarkood ee tarxiilka nagu soo sameeyay annaga sakada siin jirnay annaga u gurma jirnay annaga maxaan ku raahdaa ii sheegay tabarucaad iyo mucaawano siin jirnay laakiin qof waliba abaalka uu galo sida uu yahay looguma gudo sida awgeed gabdhaha Soomaaliyeed dhaqan ahaan dawladnimada waa u dhashaan waayo ayaga ayaa reer ka dhisa ayaga ayaa ilmaha koriya ayaga ayaa ninka koriya laftigiisa ninka waxa la yiraahdaa wuxuu ku hormaraa naagtiisu ku hormaraa ninka naag fiican qaba waliga gaari kari maysid naagaha Soomaaliyeedna kullu waa wada fiican yihiin kulaylkaas yarka ah oo la rabo rag inay u adkaystaan waxa la rabaa markuu qofku dadnimo leeyahay waa kulul yahay of course haddii aadan dadnimo lahayn ma kululaan kartid marka ragga Soomaaliyeedna runtii waa rag wanaagsan ee haddaysan gabdhaha Soomaaliyeed ahaan lahayna maanta Soomaaliya meesha ay joogto ma joogteen waa la isla wada ogyahay taas waa la sheegay waxaan rabaa wax yar markii aan ku noqdo dalka gudihiisa rajadu aad iyo aad u fiican tahay xumaan badan la faafiyaa qaraxya dhaca waa run waa ku baaba'nay dad badan naga dhintay dil toos ah jira oo qofkii mataqaanaa waxba galabsan lala beegsado iyo dhibaatooyin kale oo maaragtay ka imaanaya barakaca iyo baahida iyo mataqaanaa dagaalka soo jireenka ah oo soddon jirsaday waxaas oo dhan marka laga soo tago Soomaaliya waa nooshahay Soomaaliya ma dhiman Soomaaliya way jirtaa Soomaaliya way jirtay wayna jiri doontaa insha Allah ta'ala waxayna ku nooshahay waa idinka dartiin waxay ku nooshahay dadnimadiina iyo taageeradiina iyo dadaalkiina ku nooshahay waxa ka baxay dalka dhexdiisa waxa ka socda yididiila fiican ka socota waxa jira jaamacado fara badan waxa jira iskuulo waxa jira maxaan ku raahdaa ii sheegay kambaniyo hana qaaday oo Soomaalidu ay leedahay oo la tartamaya kambaniyada adduunka la tartamaya technology-ga geela ninka la jooga wuxuu haystaa telefoon internetna waa leeyahay wixii akhbaar halkaas uu kaaga soo gudbin karaa sidaas ay Soomaalidu waxay u tahay fast learner u tahay meesha ay joogtaba degdeg ay wax ku barataa degdegayna wax ula qabsataa waxa marka dalka ka jira rajo wanaagsan 2000 hadii Ilaahay raali ka noqdo 20ka waxa dhici doona doorashadaas waxa ka qayb gali doona ummadda Soomaaliyeed oo dhan sida aan rajaynayno waxay noqon doontaa one man one woman cod ay noqon doontaa taas markay dhacdo tartanka madaxweynenimada waxaan rajaynaynaa gabdhaha Soomaaliyeed inay ka qayb galaan oo ay soo saftaan waxaan rabaa laga bilaabo hadda oo maxaan ku raahdaa ii sheegay magaaladan Toronto aan ku wada hadlayno ilaa mustaqbalka hadii Ilaahay raali ka noqdo in musharaxiin fara badan oo gabdhaha Soomaaliyeed ah ay yimaadaan oo ay u tartamaan xilka madaxweynenimada waxaan ogahay gabdho fara badan oo dalka badbaadiyay gabdho fara badan oo heroes ah gabadha Soomaaliyeed waa geesiyad waa hero waa wadaniyad wadanka waxay ku leedahay xaquuq ay ku leedahay dibadda haday joogto iyo haday gudaha joogto waxaan rajaynayaa marka annaga haddaan nahay gabdho inaan fahanno war caruurta iyo dalka iyo calanka iyo dawladnimadu waa inaan isku sii u korinaa waa inaan isku meel uga soo jeesanaa dalkeenu gorgortan ma geli karo qarannimadeenu gorgortan ma geli karto dadkeena lama kala goyn karo wadankeenu waa hal calankeenu waa hal dawladdeenu waa hal sida awgeed waxa loo baahan yahay inaan la nimaadno inaan tusaalayno caruurteena inaan tusaalayno raggeena inaan tusaalayno ummadeena oo aan u sheegno inaan nahay hal haddaan nahay Soomaaliya hal inaan nahay mar haddii taas ay mataqaanaa laga maarmaan u tahay jiritaankeenna oo ay tahay mabda aan ku gaari karno oo aan kaga gudbi karno dhibaatadana haysata wanaagna aan ku samaysan karno waxa loo baahan yahay gabdhuhu inay istaageeraan hadda waxa dhici doona insha Allah ta'ala doorasho dhici doonta waxay ka dhici doontaa Jubbaland
doorashadaas dhici doonta insha allahu tacaala musharaxa koowaad oo aad ii sheegteen oo rabta inay matasho ummadda soomaaliyeed ee reer jubbaland waa sucaad caymad marka sucaad musharaxa gabdhaha ood ii sheegteen oo aad ka codsateen weliba idinkoo aad ka codsateen oo aad tidhaahdeen waxaan rabnaa inaad issharaxdo si gabdhaha soomaaliyeed ay xaquuqdooda u helaan si carruurta soomaaliyeed ay xaquuqdooda u hesho si ummadda soomaaliyeed ay u midowdo ummadda soomaaliyeed waxaa midayn kara gabdhaha soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed maasha allah ummadda soomaaliyeed waxaa dhibka ka saari kara oo dareen u leh oo u qalbi mataqaanaa jilicsan waa gabdhaha soomaaliyeed sidaa awgeed sidaa ii sheegteen sucaad maxamuud caymad waxaad ii sheegteen inay tahay musharaxa isaag sucaad maasha allah waxaa ii sheegteen maasha allah sucaad waxaad ii sheegteen inay musharax tahay waa soo dhawaynaynaa musharaxnimadeeda shaqadana sucaad waa ka warqabtiin sucaad maasha allah ما إلى جرتان رحمة بدلنا ما إسرعنا قبيل مطورنا قرن معبورنا قيس من نقلنا قد يدان مهر مرنا بريك ما شاء الله سعاد وحيري مقلة وحيري دقيستا سعاد محمود عيمد سعاد وهالجماع waxa ay u gashatay tuutaha waxay u gashatay waxay jaakada u xiratay ayadoo qabowgu yahay -50 waxay caruurta Soomaaliyeed iskuulada ugu maaragtay adeegto waxay hooyooyinka markii ilmaheeda la maago ay la safato waxay halganka ugu jirtay ummadda Soomaaliyeed inay ka badbaadiso dhibaatada sababtoo ah marka timaado dal aadan ku luuqadahayn ku diinahayn ku midab ahayn iyadoo dawladdu ay sharaf leedahay oo dawladda Kanada dawlad ka fiican adduunka aysan jirin oo anagu waan Kanadiyaanahay oo ka tirsanahay haddana mujtamacu hadduu dad kale oo banaanka ugu yimid ay ku soo biiraan dad waxaa jira marka dhaqan ahaan aan la qabsan karin waa culture shock wax la yiraahdo dhibaatadaas Sucaad waxay ahayd gabadhii u guntatay waxay gabadhii u gashatay kabaha inay gabar Soomaaliyeed aan lagu ciilin iskuulada district boardka ku yaala Toronto oo u istaagtay habeen iyo maalin waxay ahayd gabadha ka dhiidhisa marka caruurta Soomaaliyeed la dulmiyo ama la xiro ama ma taqaana wax gariya maglaan loo ma taqaana ay ku galaan xabsiyada gabadha ka dhiidhisay ahayd waxay gabar dalka ku xiran oo u adeegta oo mar walba dareenkeeda Soomaaliya uu ku xiran yahay boqolkiiba boqol anigoo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuule Sheekh Axmed Gaballe waxaan soo dhaweynayaa Sucaad Maxamuud Caymad halgamo weyn ah una qalanta wax badan ka qaban doonta Jubbaland inay musharax u noqoto madaxweynaha Jubbaland insha Allah galmudugna waa sugaynaa insha Allah taala insha Allah waa ku faraxsanahay ما شاء الله marka insha Allah Sucaad soo dhawow waxaad ku soo dhawaanaysaa insha Allah taala xilka aad gabdhuhu ay ku calaama saareen inaad waajibkaaga gudato inaad adiguna u istaagto ma sha Allah tabarakallah waxaan ilaahay duu raali ka noqdo ku kulmi doonaa magaalada Muqdisho halkaasna gabdhaha Soomaaliyeed waxay ku yihiin diyaar waxa maaragtay gabdhaha Soomaaliyeed ay u ooman yihiin
in gabdhaha Soomaaliyeed ay qaataan ay gutaan xilkooda oo waajibkooda gutaan cid u diidaysa ma jirto gabar Soomaaliyeed inay madaxweyne noqoto ama ha noqoto dawlad goboleed ama ha noqoto qaranka Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed waa u furan tahay waa lagu kalsoon yahay waa la aaminsan yahay waa la jecel yahay inay wax bedeli karaan oo wax tar yihiin oo wax qaban karaanna waa la og yahay marka taas waa taas waxaan jecelahay haddii Ilaahay raalli ka noqdo ballanteeni ahayd ururka haweenka inaad fulisaan haddii Ilaahay raalli ka noqdo waa wada soconaynaa waxaan sugayaa tiimka Sucaad iyo Muqdisho oo aan ku soo dhaweyno haddii Ilaahay raalli ka noqdo Zainab assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waa idin salaamay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay walaashay Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo noogu timid magaalada Toronto oo aan habeen dhaweedna joogay soo dhaweynteeda haddana caawa waxaa farxad weyn ii ah in aan ka qayb galay soo sagootinteeda marka Batuulo waxaan ku leenahay soo dhawow ilaahayna nabad ha kuu geeyo meesha aad ka timiday ilaahayna waxaan ka baryaynaa in arrimaheeda ay wax badan ay u dadaashay oo ilaa intaas ay ma arkin u safar garaysay Batuulo waxaan ilaahay ka baryaynaa in ay hesho waxaan leenahay aan baaq u diraynaa madaxweynaha iyo prime ministerka waxaan leenahay Batuulo Sheekh Axmed Gaballe waa u soo halgantay xaqeeda waa inay ururka haweenka aan laga taaban haddii laga taabtana reer Toronto la taabto sidii Sucaad hore u tiri marka waa kaasa meesha uga baxa waxaa kaloon caawa farxad weyn ah oon soo dhaweynayaa madaxweynaha musharaxa Jubbaland Sucaad waxa waa ana weligay kismaayo ma tagi laakiin Sucaad markay carrays waa raaca tiimka raaca oo ku jira marka Sucaad waxaan ku leenahay waa ku jecelnahay we love you soo dhawow abaay Batuulo adigana nabad iyo khayr bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa idin salaami dhammaan dadka halka isugu yimid tortor waxaa mahad leh ilaahayga halka isugu keenay maanta oo ah maalin waliba bil barakaysan oo maartay Ramadaan taas waa mid labaad waxa weeye horta hore ee Batuulo waa u ducaynaynaa ilaahay nabad ha ku geeyo meesha ay ka timid safar salaama danta ay leedahayna waxaan ilaahay uga rajaynaynaa in ilaahay uu maartay u fududeeyo midda kale waxa weeye dumarka Soomaaliyeed haddaan nahay dhammaan oo meel kasta anagu aanu joogno adduunka ilaa iyo burburkii wadanka markuu dhacay dumarka Soomaaliyeed waxay ahayn laf dhabarka ummadda Soomaaliyeed maxaa muxuu ahaa wad guri kasta iyo meel kasta waxa taagan oo maanta kalkaalaya waa hooyo waxa weeye waxaan rabnaa inaan isku duubnaano inagoo dumarka Soomaaliyeed ah haddeenan isku duubnaan wax ma qaban karno isku duubnidu waa muhiim meel kastoo aanu joogno annaga waxaan kaloo rabnaa insha Allah biidnillaahi tacaala in aanu ku dadaalno sidii aanu meel walba aanu joogno wax waa uga qabsan lahayn oo ilmaha yaga yaryar oo hadda soo kacaya oo annagu aanu dhalnay in aanu waxay hiigsanayaan inay ku noqdaan wadankii hooyo ilmihii wax bartay waxay rabaan inay wadanka hooyo ku noqdaan oo ay wadanka wax ka qabsadaan oo ay wadanka wax u qabtaan oo wixii ay halkaan ka barteen inay inta ku noqdaan dhulkoodii waalidkood ay ka yimaadeen ay maaragtay wax ugu qabtaan waxaan rabnaa ilmaha yagiisay dhaqankoodii u bartaan ilmuhu afkooda ay u bartaan in waxaan aan rajaynaynaa inaanu ku noqono meesha aanu ka imaanay marka waxaan rabnaa haddaanu nahay dumarka Soomaaliyeed ama aanu ka codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed ama kuwa soo socda ama kuwa hadda joogaba in dumarka 30% qondo loo qoondeeyay ay dawladdu siisaa oo sababtoo ah waxa maanta wada wax walba waa dumar meel kastoo ay joogaan dowlad goboleed ha ahaado federaal ha ahaado iyagaa lagu tiirsan yahay haddii qurbihii la joogo iyagaa lagu tiirsan yahay ayagiibaa ilmihii wada ayagiibaa ilmihii waxbaray kii jiran iyo kii wax dhibaato hayso iyo kii xabsi ku jiraba ayagaa maanta hooyadiibaa u taagan marka waxaan sugaynaa oo aanu ka sugaynaa dowladda Soomaaliyeed waana ka sugaynaa annagu haddaanu dumarka nahayna xoog baanu saaraynaa inaanu qayb weyn aanu ka noqono dowladda Soomaaliyeed iyo maxaa la oran jiray ama federaal ha ahaato ama dowlad goboleed ha ahaato waxaanu filaynaa inaanu aanu xoog saaraynaa inaanu noqono dad wax qabsada oo dowladana meel wanaagsan ka gala
awlaadeedana ilaahay waxaan rajaynaynaa ee annaga iyo awlaadeena is wadana inaan dhulkeena hooyo ku noqono eeda batuulo waa qof u soo halgantay wadankii ilaa iyo waagii dowladii Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre uu ahayd qof dumarka iyo maaragtay wanaagooda u taagan oo experience iyo u leh maaragtay u samaysay sacrifice tira badan in ay dumarka Soomaaliyeed meel ka soo saarto marka waxaanu rajaynaynaa haddaanu hooyooyinka Soomaaliyeed 100% waxaanu saborgareynay anaga eeda batuulo marka dawladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dumarka Soomaaliyeed ama xamara ku noolaadaan ama halkaan ku noolaadaan waxaanu filaynaa in eeda batuulo la siiyo 100% saboorta marka waa idin salaami dhamaantiin saasaan isku ognahay wabillahi tawfiiq ilaahay khayrtahana waafajiyo kulligeen maxay ticaawa xashasheen afurkii sharafta iyo cashada watay ee batuulo loogu talagalay dadkii de waad arkaysaa maaragtay yaqaanay anagu dawladii bar ah oo dawladii barta aanu ka soo yaacnay laakiin dadkii dawladda wax ka soo dhaliyay wanaageedii yaqaanay ku soo shaqeeyay way nala joogaan waa alxamdulillah because hadaadan arag adigu dadkii waxaas arkay waxba ma tiid aday aniga 25 years aan jiray markaan Muqdisho ka soo tagay haddana 28 years aan ka soo maqanahay 29 sagaalatan sano waa la qariyaa da'da xoogaa konta ka dhaafta marka waxaan leeyahay caawa dadku waa caajiseen xoogaa waa u jeedaa ogaada waxa loo baahay in la caajiso in been la noqdo in taayar la noqdo naagaha wadankan aad ku raaxaysanaysaa calanka guduudka iyo cadaanka dhaliyay qaarkood waa la daldalay qaarkood waa la dilay qaarkood ragooda sun siiyay ayadoo la jiiftaa la soo wuxuu yiri emadi ku qabo bahasha balaayadana soo socotee marka saasay tahay way ka survivor garoobeen way soo istaageen way dagaalameen wadanka kor haween baa ka haysta kuwiinada wadankan haysato ina ogtiin moogi wax kasta kuwiinada la weydiiyaa waa naag ogaada Amerikada aad arkaysaan mother strategic ayaa ku qoran amendment sharcigooda hooya iska leh hooya u soo dagaalantay lama tuso dadka laakiin markay naaga kacdo waa aragteen they make change haweenka Soomaaliyeed ma dhaha education ma leh laakiin wax individual la dhaha alla nagu imtixaamay inay naag qofka marka uu wacdo kira wallahi ilmihi yasaan war ilmaha xageegayna milkaha ku qaadaysa hadii dawlad jirin hadday dadnimo jirin hadii dhulka laga qaato hadii adoon nool lagu dhaxlo xagee ilmaha geynayna ilmuhu waa bedelmayaan waa fasuqmayaan ilmuhu waa inay saleeyihiin ay ka soo kacaan diyaaradaha dadku waxay ka soo kacaan dhulkooda anaga dhulkeena noloma ogdaas waa xarunteena loo ixtiraamin waa in xudunta Soomaaliya core of Asia Muqdisho inaan tagno waay Muqdisho ay taala nabad iyo gogosho Muqdisho ay taala nin walba carar gobol la samee adduunyo la qas orodnay daalnay Muqdisho inaan loo sugu hoydo oo dadku Muqdisho tago oo hantidaada Muqdisho geyso oo Muqdisho ragga jooga aan u tagno waa oo dhahno waad wada imaataan waad is salaantaan waa is shishumisaan laakiin dadkaad u kala sheegtaan inaad kala gobol tihiin ma jirto diyaarada isla raacaan shaahi isla cabaan jeegagay kala goostaan adiga laakiin maxaa lagu sheegay gobol hebel ah tahay Muqdisho aan ka soo duulay aniga Jubbaland waa degay madaxweynaan doonayaa